goorma lagu guursaday maxaad nooga qarisay saabiriin feedback baa ahayn aroosad caadi la iimoodey horta sheekh maxaa u qaniintay sheekh deena qaniina aniga de meesha chicken baa yaala la igu yiri mid hodan la dhaho walaalnahay kabe ma waraan reerchikan waa nin weyn ceramisti galaanayniyo horta reerchiga si gooni aan u jeclaaday anoo fariid batelayana walaaya iyo taajir labadaba waa jiraan soo dhawaada mar kale daawadayaal waxaa barbarkayga joogantay dadka aad wada garanaysaan kulley caruuskii iyo caruusadii Suhayb iyo Sabriin Amir iyo Sabriin yaa labada dhinac jooga filimka Hawla Duune sida weynaada loo socotaan bisha barakeysan Ramadaan bahda Sollywood ay soo diyaariyeen oo jigjiga ku sugan ayaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa marka hore soo dhawow Suhayb ama magacaaga afgarashada ee filimka hadii aan kugu yeedhay Amir ku soo dhaw magaalada jigjiga iyo Dagara Media adood ma santahay saacad aan ku dhawaay Dagara Media iyo jigjigaba waana ku madcelinay aad baa ma santahay caruusad Sabriin gabadha ma aragtay duruufta uga faa'iideystay wiilka ku soo dhaw jigjiga walaalo waan dhawahay horta jigjiga waa markii ugu horeysay imaado laakiin aad bay u qurux badan tahay ma sha Allah waan la dhacay marar badan inaan ku soo noqnoqdana waan rajaynayaa bal Amir ka waran filimkan aad wadaan Hawla Duune message-kiisa iyo fariinta uu xambaarsan yahay marka hore intaan u sii gudbin waxyaalaha ugu saameynta badnaa iyo waxyaalaha sanka su'aalo ka weydiin doono muxuu yahay filimkan iyo nuxurkiisa iyo fariinta xambaarsan yahay wallahi Hawla Duune filimkan wuxuu xambaarsan yahay laba nuxur oo ugu waaweyn filimka oo ah wacyigelinta taariibka iyo sheekadayda aan anigu matalayo ee ah wacyigelinta inaan hablaha ma aragtay god ugu ridin oo ma aragtay waxa weeyaan lacag iyo aduun la siisan iyadoo interest la eegayo marka filimku labadaas wacyigelineed ugu muhiimsan ugu waaweyn buu saaraya culayska kolley de xalqado badan buu filimku hadda aad ka soo tabiseen qaybo badan oo kamid ah oo idin dhibana waxa ku duubsan magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Jigjiga markii hore satimada ma waraan reerchikan waa nin weyn ceramisti galaanayniyo Allah oo meel waalanta qabalayga tobnaad actis waa nin weyn reerchiga ma anigu actor weyn baa tahay filimaan badan ka soo dhex muuqday doorka jilinkiisuna cajiib yahay runtii oo saad isku nacasaynayso kale hadalhayn badan bay dhalatay dadka qaar baa falcelino u eeg run inay wax yihiin ay ka soo falcelinayaan bulshada maxaa kala kulantay intii aad filimkan ku jirtay bulshada oo kaaga soo noqdo feedback oo falcelino wariyo horta hadaad rabto ma aragtay inaad wax matasho qalad waxay tiraahdaa aktarnimada waa inaad feeling garaysaa waxaad matalayso feeling waa inaad dareentaa marka anigu doorkan waxaan matalayaa ninka nacaska ee ma aragtay yar xanuunsanaya marka anigoo fariid matalayana waa lahayaa anoo fariid matalayana waa lahayaa iyo taajir labadaba waa jiraan oo ma aragtay okay ade doorkan nacas baan matalayaa marka waxa weeyaan qofka actorkii marba halku joogay inuu eekada muhiima actornimada laftigeeda ku jirta marka waxa weeyaan dad badan baa moodaya inaan iska asaasa qayd waxba وأنه في عنا عاد وعبارة أوكي وعبيك بس يا أكتينكم بساسة مركها وحلي يعني رمضان كان أمير بان هاي مركب مثلا سوي بارا horta sheekh maxaa u qaniintay شيخ تينا قنينا أنا قلت ماشى تشيكن بقى يلا اللي يقولي ميد هذا الله هو على نهاية كبيسي ماشى تشيكن بقى يلا اللي يقولي شيخ هو سيتين واي تشيكن بقى راديني أنا مهرما قانو وحاس قول سفا قانو وعن مقرنين ساس الشيخ هو قليل ساس كغفوتشيو ويرعى رئيسنا هذا ويقول كعده يقول نعطيك كعده تسوى غنية وحويان وحكب الطرم بعد عكرات يقول كعده ما داركتها حاله مركا قالك يقصوا كيسان وقميص يبنك وغنيني بقى سو ما تكرر مركا حلي هاي فيدباك جدي سامين تدي يلا سي عطيو دي هذا الحين بدون رئيس شو واحد هذا يقصوا فوقانينا واحد قار بارك له وعافي له وعافي تي مكان عافمات قبائل له وعافمات كي عمرك وسياد لها حبانك كما سيها يواك تكرير يا أظن إلى وحسينا سرمقبة أو كلام سرمقبة أنا كنت تشرينا إنك ما داركتي أنت الرير كورن رير كمعمولي وتاجر كها مركا كانت ملتي مليونير بانها سو ما تكرر مركا وحيس الشظية مرا حنون قيس للصعودي مكان ورجع حنوصل إيه
markaa bal waa khayr bay noqonaysa. filinka intaa ku jirteen maxaa kugu dhib badnaa ama saameyn kugu reebay wallaahi walaalo horta anigu wax idhibay iyo wax saameyn igu yeelay midna filiga kuma jirin feedback baa ahaa in aroosad caadiya la imoodayay dadka qaar aan fahansanayn googooska tiktok markay ku arkaan whatsapp iga soo wacay goorma lagu guursaday maxaad nooga qarisay Sabriin marka waxaan oran lahaa dadkaasna run maaha jiliin bay ahayd marka kaas hawsha jiliinku ma nala gashanay aroos run ma kaygu dambeeya u dambeeya kaygu horta reejigjiga si gooni aan u jeclaaday bulshooyintana waxaan u dirayaa fariin walaal waxaan aanu matalayno ama aanu ka hadlayno waa wax dhaco oo jira sida tahriibta oo kale been ha u malaynina inta aanu soo duubnay in ka badan buu idinku dhici kartaa iska ilaaliya familiyada hablaha lacagta ka doortana waxaan leeyahay habliina ha iibinina aywa fariin aad u culus Amir adiguna maxay tahay fariinta aad bulshada u dirayso wallaahi bulshada Soomaaliyeed oo dhan waan salaamayaa waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin waxa weeyaan saad noo dhiirigelisaan annagu haddaan nahay team Sollywood waxaan nahay dadka kaliya bisha Ramadaan laba shay baa important very muhiima waa Sollywood iyo Afurka bas waxa weeyaan teamkayga iyo Afurka bisha Ramadaan labadaas baa muhiima marka waxa la yaabdo baasadiisaad noo garab taagantiin daawashadiina iyo waxa weeyaan barbaristaagiina annaguna idinka daalmayna insha Allah wadina shaqayn doonayno dawladda deegaanka aad baan u salaamayaa reerjigjiga waan salaamayaa waxa la we love you dhamaantiin waxaan halkaasi soo dhaweynta kooban iyo sidoo kale barnaamijka kooban aad idinka diyaarnay team Sollywood oo magaalada Jigjiga qaybihii dhinaa ee xalqadaha kala duwan ee bisha Ramadaan ay ugu tala galeen filinka weyn sida weyn loogu xidhan yahay hawladuun tan iyo inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono aniga team Dagaar waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo